السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وناكسن دابديال ميل walba joogtaan iyo si walba aad noo daawanaysaan halkani waa dawladnimo TV waxaadna ku soo dhawaataan daabadyaal barnaamijka xog waran oo alaaba aan idin ku soo gudbino dhacdooyinka ugu dambeeya arrimaha Soomaaliya caalamka qodobada aad ku daawan doontaan barnaamijkan xog waran waxa ka qayb noqon doona ururka midowga Afrika oo si weyn u cambaaray muddo kororsiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay markaasi u sameeyeen madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dawladda dalka Mareykanka oo soo saartay dalab cusub kadib go'aankii midowga Afrika ee Soomaaliya jaamacadda Carabta oo war ka soo saartay xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya Afrika muddo kororsiga Farmaajo waxa ka halis badan kooxda Al-Shabaab ayna ku dhawaaqday dawladda Djibouti oo jawaab culus ka bixisay eedeynta markaasi uga timid dhanka dawladda federaalka Soomaaliya midowga Afrika oo Soomaaliya u soo magacaabay ergey aan caadi ahayn iyo shaqada uu qaban doono dawladda UK oo iyaduna markaasi war ka soo saartay go'aanka golaha amniga ee midowga Afrika iyo waxaad ku daawan doontaan daabadyaal ra'iisul wasaaraha dawladda Soomaaliya mudane Roble oo amray in sharciga la horkeeno dadkii ku lug lahaa shaqadii ka dhacday shalayto garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho qodobadaas iyo qaar kale ayaad uga bogan doontaan hadduu al raalli ka noqdo barnaamijka maanta oo xagaagaan ku bilaabay warbixinta ugu horeysa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa si adag uga hadlay shaqadii shalayto ka dhacay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho muuqaal markaasi laga soo duubay ra'iisul wasaaraha xukuumadda dalka Soomaaliya ayaa markaasi isagu ka hadlay wixii shalayto ka dhacay garoonka Aadan Cadde muuqaal markaasi laga soo duubay ayaa muujinaya in ciidamada nabad sugidda ee dharcadka ee Niisa iyo sidoo kale shaqaale ka tirsan hay'adda socdaalka ee garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho in ay ku dagaalamayaan gudaha qaybta ay fadhiistaan dadka ka yimaado dibadda ee garoonka Aadan Cadde ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in aan marnaba la aqbali karin dhacdadaasi isagoona ku tilmaamay mid markaasi aad u foolxuun ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Roble ayaa sidoo kale faray wasaaradda amniga iyo hay'adaha kale ay qusayso in ay baaritaano degdeg ay ku sameeyaan falkaasi si dhaqsahan ah sharciga loo horkeeno cid kasta oo ku lug lahayd wixii shalayto ka dhacay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho iyadoona madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Farmaajo uu isna amar ku bixiyay in xilalka laga qaado cid walba markaasi ku lug lahayd wixii shalayto ka dhacay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho taasi oo keentay in markaasi baraha bulshada lagu faafiyo muuqaal markaasi la arkay in shaqaalaha ee markaasi garoonka iyo ciidamada Niisa in ay isku dhex qabsadeen madaarka Aadan Cadde waxaana arrintaasi ay sumcad xumo iyo sidoo kale u soo jeeday maamulka garoonka Aadan Cadde taasi oo keentay in xali markaasi shir degdega la iskugu yeero madaxda ugu sare laamaha amniga si markaasi arrintan xal waara looga keeno dhaga kalena taliska ciidamada booliiska dowlad goboleedka Hirshabelle oo soo saaray awaamiir cusub ayaa bulshada magaalada caasimadda Jowhar ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan amniga si looga hortago falalka amni darrada ah ee ka dhaca magaalada taliyaha ciidanka booliiska Hirshabelle Cornel Xasan Dhicisow Xasan ayaa waxa uu sheegay in markaasi loo baahan yahay dadka haysta hubka in aysan magaalada ku dhex sidanin isagoo tilmaamay in hubka sharci darrada ee magaalada lagu dhex wato in uu khatar ku yahay amniga magaalada iyo sidoo kale deegaanka Cornel Xasan ayaa si gaar ah markaasi ugu baaqay ama baaq ugu diray ciidamada kala duwan ee ka howlgala magaalada Jowhar isagoona markaasi ugu baaqay in ay iska ilaaliyaan hubka ay ku dhex wataan magaalada iyagoo ayna shaqo ku jirin amniga magaalada Jowhar ayaa si aad ah loo adkay inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan iyadoo ciidamada booliiska ay wadaan howlgallo lagu sugay amniga magaalada si markaasi halkaasi aysan uga dhiceen faralidi kuwa amniga guud ee magaalada Jowhar dawladda dalka Djibouti ayaa iyaduna ka jawaabtay eedeyntii shalayto uga timid dawladda federaalka Soomaaliya ee ahayd in faragelin ay ku hayso arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Dube ayaa ku eedeeyay dalka Djibouti iyo sidoo kale dawladda Kenya in ay isku dayaan inay farageliyaan go'aanka midowga Afrika ee arrimaha Soomaaliya
isagoo sheegay in ay wadaan ololo diblomaasiyadeed oo ay markaasi kaga dhaadhicinayaan golaha nabadda iyo ammaanka midowda afrika soo jeedin qodobo ay rabaan in markaasi lagu daro qoraalkii xalayto ka soo baxay wasiirka maaliyadda iyo sidoo kale dhaqaalaha jabuuti mudane eliyas muuse ayaa sheegay in aad ay uga niyajabeen ugana xun yihiin in wasiir ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya uu mar kale ku celinayo eedeymo iyo tuhun been abuur ah oo ah in jabuuti ay ajendo ka leedahay xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dalka soomaaliya aan si aadah u caddeeyo jabuuti uma qalanto hadalladan oo kale in jabuuti lagu eeday inay faragelinayso arrimaha soomaaliya oo ay dhinac la jirto waa mid aan wax micno lahayn oo waxyeeleynayo qiyaamka ku aadan nabadda iyo xasiloonida soomaaliya ayuu yidhi eliyas aad ayaan u qiimeynaynaa waxay soomaaliya noo fashay sidaa darteed ma samayn karno wax ka yar waa taas sababta ay wiilasheena ugu dhimanayaan dib u curashada soomaaliya jabuuti ayaa waxaa ciidamadeeda sidoo kale ka tirsan kuwa nabadsugidda ee amisom ayuu yidhi dowladda soomaaliya ayaa siyaasadda cadaawad leh markaasi kula dhaqamaysa jabuuti tan iyo markii ay saaxiibeen madaxweynaha farmaajo iyo keliga taliyihii eritrea isese afweke oo ciidankiisi ay xoog markaasi ku haystaan dhul ay leedahay dowladda jabuuti waa hagaag waan isku soo laaban doonaa dhegeystayaal barnaamijka halkiisa ayuu noga socon doonaa qodobo dhowra inoo saaray guud ahaanba warbixinada kalena waxa ay ku saabsan yihiin wararkii markaasi la xiriiray go-aankii xalayto markaasi ka soo baxay ururka midowda afrika oo iyaguna markaasi aad u cambaaray muddo kororsiga loo sameeyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maraykanka oo ka hadashay amisom iyadoo markaasi laga dalbaday inay la socdaan dhaqdhaqaaqa ciidamada dowladda federaalka soomaaliya africom oo farmaajo ku tilmaamtay inuu la mid yahay kooxda ama uu ka khatarsan yahay sida kooxda al-shabaab waxyaabaha kale aad maqli doontaana waxaa ka mid ah u k oo iyaduna markaasi war ka soo saartay arrintaasi iyo ururka jaamacadda carabta oo iyaguna markaasi ka falceliyey go-aankii xalayto ka soo baxay midowda afrika oo aad markaasi loogu cambaaray muddo kororsiga loo sameeyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya qodobadaas iyo qaar kale ayaa inoo haray oo barnaamijka aad uga bogan doontaan waa hagaag mar kale dhegeystayaal waxaan idin leenahay soo noqod wacan oo wanaagsan bal iminka aan soo qabto qodobada kale ee barnaamijka qaybta ka aan ku bilaabo golaha nabadda iyo amniga midowda afrika ayaa cambaaray go-aankii uu golaha shacabka soomaaliya qaaday 12 abriil 2021 ee uu muddo 2 sana markaasi ugu kordhiyey muddo xileedka madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo baarlamaanka warmurteed ka soo baxay golaha ayaa lagu sheegay in go-aankaasi uu dib u dhigayo doorashooyinka soomaaliya islamarkaana uu waxyeeleynayo midnimada iyo xasiloonida soomaaliya iyo hanaankii laga maarmaanka ahaa ee dimuqraadiyadda iyo dastuurka dowladda federaalka soomaaliya golaha ayaa sidoo kale waxay walaac ka muujiyeen saameynta xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya ay ku yeelan karto nidaamka federaalka soomaaliya midnimada ciidamada iyo hay-adaha amniga iyo sii wadaysta dagaalka dhanka kooxda al-shabaab qoraalkan ka soo baxay xalayto golaha ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay rumaysan tahay in heshiiskii 17 sebteembar 2021 uu yahay saldhigga iyo habka ugu wanaagsan ee lagu qaban karo doorasho xilligeedu ku dhacdo daafuran oo markaasi la isku hadleen karo waxa ay markaasi ugu baaqeen hogaamiyaasha soomaaliya inay ahmiyad siiyaan danaha qaranka ayna degdeg dib ugu laabtaan wadahadaladii saldhigga looga dhigay heshiiskii sebteembar 17 iyo soo jeedintii guddiyada farsame ee baydhabo ee ku kulmay bishii febraayo golaha ayaana ka codsaday amisom in ay markaasi isha ku hayaan dhaqdhaqaaqa ciidamada soomaaliyeed sidoo kale ka codsaday guddoomiyaha guddiga midowda afrika inuu si degdeg ah u magacaabo ergey oo u diro soomaaliya si markaasi uu dhinacyada soomaaliya iyo saamileyda siyaasadeed ay ugala shaqeeyaan in heshiis la gaaro dibna loogu laabto tendhada fisyoni dibna uu warbixin ugu soo celiyo golaha 4 toddobaad gudahooda ayaa lagu yidhi hagaag sidoo kale warbixinno arrimahaasi la xiriira haddii aan soo qabtana wasaaradda arrimaha dibadda dalka maraykanka ayaa iyaduna taageertay qoraalkii xalayto ka soo baxay golaha nabadda iyo ammaanka midowda afrika ee sida xoogan markaasi loogu cambaarayay muddo kororsiga 2 sane ee loo sameeyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo golaha shacabka qoraal ka soo baxay xafiiska arrimaha afrika ee waaxda arrimaha dibadda ayaa lagu yidhi waxaan taageeraynaa go-aanka golaha nabadda iyo ammaanka midowda afrika ee cambaareynayo muddo kororsiga oo toddobaadkii tagay meel mariyey baarlamaanka soomaaliya
waxaan soo dhoweynaynaa dhexdhexaadinta midowda afrika waxaana ugu baaqaynaa hogaamiyaasha soomaaliyeed inay isku raacaan waddo hore loogu socdo si deg deg ahna loogu xaliyo qalalaasaha ka taagan arrimaha doorashooyinka war murteedka xalayto ka soo baxay golaha nabadda iyo ammaanka ee lagu cambaaray muddo kororsiga farmaajo ayaa lagu sheegay in go'aankaasi uu dib u dhigayo doorashooyinka soomaaliya islamarkaana uu waxyeeleynayo midnimada iyo xasiloonida soomaaliya iyo hanaankii lagamarmaanka ahaa ee dimuqraadiyadda iyo dastuurka dowladda federaalk soomaaliya go'aankan golaha ayaa dhabarjibin weyn ku noqday madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane farmaajo iyadoo uu markaasi ururka midowda afrika uu ahaa kan keliya ee ka harsanaa beesha caalamka iyadoo horey markaasi muddo kororsiga dowladda federaalk soomaaliya ay u diideen qaramada midowda yurub maraykanka iyo dhammaan dalalka yurub dowladda federaalk soomaaliya ayaan weli ka jawaabin go'aanka ka soo baxay xalayto midowda afrika hase yeeshee dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in uu albaabkii ugu dambeeyey uu ka soo xirmay madaxweynaha dowladda soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo markay noqoto arrinta la xiriirta muddo kororsiga markaasi golaha shacabka ay u sameeyeen madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo wakhtigiisi dhammaaday 8 febraayo ee sanadkan aynu ku guda jirno 2021 isla arrimahaasi haddii aan eegnana dhanka jaamacadda carabta ayaa iyaguna markaasi war ka soo saaray xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dalka soomaaliya jaamacadda carabta ayaa iyaguna ku dhawaaqay inay walaa xoog leh ay ka qabto xaaladda soomaaliya iyo khilaafka ka dhexeeyo dhinacyada siyaasadeed ee soomaaliya ee ku saabsan arrinta la xiriirta muranka doorashooyinka oo la filaya in dhowaan ay ka dhacaan dalka soomaaliya balse midaasi aysan dhicin bayaan ka soo baxay jaamacadda carabta ayaa loogu baaqay dowladda federaalk soomaaliya madaxda maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka inay xal siyaasadeed oo deg deg ah markaasi ay ka gaaraan arrinta doorashooyinka golaha jaamacadda carabta ayaa sheegay in wadahadallada siyaasadeed uu yahay midka keliya ee xal looga gaari karo heshiis la isku raacsan yahay oo lagu maamulo doorashooyinka soo socda ee la filaya inay ka dhacaan dalka soomaaliya bayaankan ayaa sidoo kale lagu sheegay in jaamacadda carabta ay garab taagan tahay shacabka soomaaliyeed xilli kasta ilaa ay markaasi ka guulaysanayaan caqabadaha haatan jira ee dibudhiska hayadaha dowladda waxayna jaamacadda carabta sheegtay in ay laga marmaan tahay ilaalinta midnimada qaranka xasiloonida iyo soo kabashada guud ee dalka soomaaliya waxaa hadda ka taagan khilaaf siyaasadeed oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka maadaama dowladda hadda ka talisa wakhtigeedu uu ku eka 8 febraayo ilaa haddana ma jiro doorasho heshiis lagu yahay oo markaasi lagu soo dooranayo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya iyo baarlamaanka iyadoo weliba uu guddoonka baarlamaanka uu soo saaray sharci u ogolaanaya muddo korin 2 sana madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya sharcigaasi oo ay ugu magacdareen jihaynta doorashooyinka isniintii madaxweynaha wakhtiga ka dhammaaday mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa soo dhoweeyey in midowda afrika uu door hogaamiyeed ka qaato fududeynta geedi socodka doorashooyinka oo markaasi awood u siinayo muwaadin kasta in uu markaasi doorto wakiilada iyadoo markaasi loo marahay doorashooyin xor iyo xalaala balse xalayto warkii ka soo baxay midowda afrika ayaa waxauu noqday mid markaasi layaab ku noqday madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo isla arrimahaasi ayaan ku guda jirnaa welina guud ahaanba waxaan eegaynaa xaaladihii ugu dambeeyey arrimaha soomaaliya warkiga ka soo baxay xalayto midowda afrika dowlado horleh oo ka hadlay se midowda mucaaradka oo hogaaminaya madaxweynihii hore ee dowladda soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa isna goornow ka hadlay go'aankii xalayto ka soo baxay midowda afrika madaxweynihii hore ee dowladda soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo sidoo kalena ah guddoomiyaha midowda musharaxiinta mucaaradka ayaa si weyn u soo dhoweeyey baaqi midowda afrika ee xaaladda soomaaliya isagoona ka digay tallaabooyinka qallafsan ee dowladda wakhtigeedu uu dhammaaday ay ku dhaqaaqday sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee dowladda soomaaliya ayaa sheegay in soomaaliya ay ku socoto meel halisa islamarkaana ay tahay in laga badbaadiyo inta uusan god mugdi ah ku dhicin xalka gaarista xiisadda siyaasadeed ee dalka soomaaliya oo ka sii dartay tan iyo markii uu golaha shacabka meel mariya muddo korin sharci darro ah oo 2 sano markaasi loo siiyey awood in madaxweynaha uu sii joogo villa soomaaliya waxaan codkayga ku biirinayaa taageerida baaqa golaha amniga ee qaramada midoobe kan golaha amniga ee midowda afrika iyo baaqyada isxigxiga ee saaxiibada soomaaliya ee caalamka oo si wada jira markaasi u cambaareen muddo korinta sharci darrada ah oo in yar oo ka mid ah golaha shacabka ay sifa aan waafaqsaneen shuruucda dalka ay u go'aamiyeen sidoo kale
madaxweynihii hore dowladda Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu markale ku celiyay in Soomaaliya aysan qaadi karin xil kornin oo ay markaasi tahay in heshiiskii Sebtembar 2020 uu yahay dariiqa kaliya ee looga badbaadin karo dalka inuu galo fowdo iyo amni darro caqabad ku ah xasiloonida Soomaaliya iyo tan gobolka. waxa uu ka digay in madaxda waqtigoodu dhammaaday ay dhagaha ka furaystaan baaqyada beesha caalamka kuwaasi oo looga baaqsanayo qaralaasa siyaasadeed oo dalka ka dhaca islamarkaana aan la aqbali karin in la dumiyo dowladnimo aan markaasi caga badan ku taagnayn ee meesha fog markaasi laga keenay. waxaan ugu baaqayaa madaxda xilkooda dhammaaday iyo maamulada sida indhala-aanta u taageeray iyagoo la tashanin dadka ay matalaan in ay ka fiirsadaan tallaabooyinka qaras iska tuurnimada ah oo ay qaadayaan. waxaana ugu baaqayaa in ay ku soo laabtaan miiska wadahadalka oo ay tahay in doorasho la aado sida ugu dhaqsiya badan. dalkan dowladnimadiisa jilcan meel fog baa laga keenay oo wakhti ah xoolo iyo nafba loo huray sidaa awgeedna marnaba lama aqbali doono ficilada aan mas-uuliyadda lahayn ay markaasi wadaan koox yar oo kursi jeceyl uu madax maray ayuu yidhi. ugu dambeyn madaxweynihii hore ee dowladda Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo isagoo markaasi ku raacay go'aankii xalay saqda dhexe ka soo baxay golaha midowga Afrika kaasi oo lagu cambaareeyay muddo kordhinta markaasi loo sameeyay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ugu dambeyn war qoraal oo ka soo baxay xafiiska dowladda UK oo u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa waxaa lagu taageeray go'aankii xalay saqda dhexe ka soo baxay golaha amniga iyo nabadda midowga Afrika waxaana ku cambaareeyeen muddo kordhinta loo sameeyay madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dowladda UK ayaa waxay tiri waa muhiim in la xalliyo qalalaasaha siyaasadeed iyo in madaxda Soomaaliya ay markaasi la falgalaan dadaalada dhexdhexaadnimada ee midowga Afrika taasi oo aan soo dhaweynayno islamarkaana aan taageersanahay. sidaasi waxaa tiri Kate Foster safiirka UK u fadhiya Soomaaliya qoraal iyadoo ku daabacday boggeeda Twitterka. golaha nabadda iyo ammaanka ee midowga Afrika oo shalayto ka shiray xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa si weyn xalayto u diiday muddo kordhinta uu sameeyay aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ee uu markaasi u saxiixay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Farmaajo in 2 sano ay ugu kordhiyaan si markaasi dalka u aado doorasho qof iyo coda. guud ahaan daawadayaal qodobkaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya. tan iyo kulantan dambe intaan barnaamijkan kiisigaan ku kulmi doono waxaan idinku dhaafeynaa sidaas. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.